sababta mataqaanaa marka adiga oo is ilaalinayay waqti dheer hal maalin marka aad bariis ama baasto amaba wax macaan aad cunto miisaanka 2 kiilo kor uu ugu boodo bal videogan maanta dhameyso. Assalaamu calaykum ku soo dhawaada mowduucana maanta waxaan kula qaybsan doonaa 2 qodob oo keeni karta overnight amaba habeen aad seexatay waaga marka uu ku bariyo hal mar miisaankaaga kor u qaadi karaayo iyo qodob oo aad arimahan kaga hortagi karayso. qodobka koowaad cuntada carbohydrate-ka loo yaqaan marka hore waxaad ogaataa waxay xambaarsan tahay biyo badan. tusaale marka aad cunto cuntooyinkan burka ka samaysan jirkaagu wuxuu keedinayaa biyo badan. 1 gram oo carbohydrate ah 1 gram oo bariis ama baasto ama canjeero ama waxa aad cunaysid waxa ku dhex jirta qiyaastii 3 gram oo biyo ah. waana saynis ahaan sida jirkaaga uu u shaqeeyo. marka haddii aad cunto bariiska ama baastada ama rootiga muruqyadaada iyo beerkaagaba waxay durba xambaarayaan biyo badan taasoo kuu keenaysa inaad culays dareento ama marka aad miisaanka korto miisaankaaga uu kor u kaco. qodobka labaad waxaan aad xambaarayso ma ahan fat ama baruur. marka hore fatka ma ahan wax si sahlan lagu kaydiyo marka loo fiiriyo qaabka jirkeena uu u shaqeeyo. baruurtu waqti ayay qaadataa waxayna ku samaysantaa calories ama tamar badan oo waqti dheer isbiirsaday waliba calorieskaas ama tamartaas oo la waayo inuu jirkaaga isticmaalo. haddii marka waaga kuu bariyo habeen dheer kadib aad aragto inaad xambaartay 2 kiilo ama 3 kiilo ama 1 kiilo oo dheeraad ah taasi suurtagal ma aha. marka kugu celiyo waxa aad dareemayso waa biyo dheeraad oo jirkaaga soo galay amaba suurtagal in dibiryo ay jirto gaar ahaan haddii aad cuntadii aad xalay ku cashaysay cusbo badan ay lahayd. qodobka saddexaad marka qofka muxuu samayn karaa marka haddii arimahan ay dhacaan. tusaale ahaan hala seexatay saanga waaga markuu ku bariyo miisaanka kortay miisaanka waaba cuslaadayba maxaa kula gudboon maxaad samaynaysaa? haddii aad dareento in jirkaaga bararay cunto carbohydrate ah kadib hawlwalin kaliya biyo badan cab dhaqaaq samee ilaa 10,000 steps hadaa awoodo 5,000 steps hadaa awoodo oo dheefshiidkaagana inuu shaqadiisa qabsado u fasax 24 saac gudahooda miisaankaaga si dabiici ah ayuu hoos ugu soo noqon doonaa. looma baahna in aad intaad baqdo naftaada aad cadibto gaajana aad isku disho. dabcan videogeena maanta intaas ku egyahay waxaan kaliya ka codsanayaa haddii lacala arinka noocan oo kale uu kugu dhacay commentiga inaad nagu wadaagto walaalka ku safriye. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.